maamulka gobolka Togdheer ayaa ka qayb galay munaasabad lagu kala dirayay shaqaalaha bixinaya talaalka cudurka dabaysha oo si rasmi uga bilaabmay guud ahaanba gobolka Togdheer. madashani lagu daafurayo bilowga talaalka cudurka dabaysha iyo waxa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda caafimaadka, dalada UNITA iyo hay'adaha wasaaradda caafimaadka kala shaqeeyay wacyigelinta dhanka talaalka. ugu horeynba waxa halkaasi ka hadlay madaxa wacyigelinta wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer Abubakar Cawil iyo Faaduma Axmed Faarax oo kamid ah mas'uuliyiinta dalada UNITA. inaynu ku shaacino munaasabadan in talaalkii ciribtirka cudurka dabaysha uu si rasmi uga bilaabmay dhammaan Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer. maanta bishu tahay 24 isagoo socon doona ilaa 27 bisha. waxa kale oo talaalka dheer kiniinka vitamin A oo la siin doono iyadana ilmo kasta oo talaalka qaata. maanta waxaan aad ugu faraxsanahay in dumar badan halkan fadhiyo iyagoo caruuraha ka mas'uul yihiin halkan lagu daafurayo ama lagu shaacinayo waa talaalkii booliyada. talaalkaas waxaan jecelahay hooyo kasta iyo aabbo kasta iyo mas'uul kasta inay uga faa'iideeyaan caruurta ay mas'uulka ka yihiin ama caruurteena yaryar ee u baahan talaalka. waxaa laynoo sheegay talaalku ka hortag mooye inaanu ka daba tag lahayn. cudurku hadduu dhaco inaynu hadhow isqoomamayno maaha, waa inaynu inta wax ka qabadka uu leeyahay aynu wax ka qabanno. alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaa wax lagu farxa ah guryaheennii baa laynoogu keenayaa shaqaale caafimaadka. bahda caafimaadka dadaalkan ay wadaan runtii waan ku faraxsanahay. talaalkuna sharci ahaan waa shay bannaan. gudoomiyaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer Axmed Dirir Cali iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Aadan Qabyatire ayaa tilmaamay khatarta uu leeyahay cudurka dabaysho. maanta aynu fulinaynaa sida hadal ku maqlayseen talaalkii dabaysha ama pooliyada. talaalka dabaysha waxa weeyaan waa talaal ka hortagaya xanuunkan keena naafada. daraadeed waxa loo baahan yahay in caruurta dhammaan laga talaalo xanuunkan. badan baa laga yiri pooliyada isu sheegmayno iyo xanuunada kale la socday caruurta laga talaalo. caruurteena waa ka waraysan xanuunka pooliyadu waa xanuun naafeeya. in badan baa lagu soo celceliyaa waynu maqalnaa xanuunkii pooliyada. waxaynu ugu celcelinaynaa ilaa aynu ka dhamaystir ama aynu ka tirtirayno wadankeena waa la wadayaa. insha Allah waxaan idinka filayaa gobol ahaan inaynu ku guuleysan doono 4 cisho wax badan aynu talaali doono. ilaahayna waxaanu ka baryaynaa ilaahay baalka inaga dulqaado. Maxamed Ibrahim British TV-ga qaranka Somaliland Bro.